maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago camal ilaahay jecel yahay haddaa samaysidna uu ku jeclaanayo, kuugu dembi dhaafaayo, naarta lagaaga badbaadinayo, carshiga ilaahay aa harsanaysid, adduunyo lagugu xifdinayo, lagugu caafinayo, farajkaaga lagugu furaayo, inshaa allahna janno aad ku gelaysid. camalkaas ilaahay jecel yahay intaasoo wuxuu kugu siinayna muxuu yahay? alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. walaalaha hirdatu cilmala adduunkaad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii 9aad oo barnaamijkii isniinlaha ahaa, acmaal haddaa samaysid ilaahay uu ku jeclaanayo, kuguna dembi dhaafaayo, inshaa allah jannana aad ku gelaysid. walaalayaal 8 xalaqaan ka soo sheekeynay, 8 camalaan soo sheegnay. haddaadan dhegaysanin fadlan ku noqo dhegayso. maantana waxaan rabaa inaan kuu sheego camalka 9aad. camalka 9aad waa camal aada u qiimo badan, diinteennana meel weyn aga jirto. camalkaasna walaalayaal waa lagugu dembi dhaafaa, ilaahay caradiisa ku qaboojini. haddaa xanuunsantihid waa lagugu caafinaa, dhibaataduu kaa badbaadinaa, cadaabta qabrigaa laaga badbaadaa, naarta jahannamaa laaga badbaadaa, carshiga ilaahaa lagu harsadaa, jannaa lagu gala. ma xisaabi karno fadaa'ishiisa. camalkaasna walaalayaal waxaa waaye asadaqa. sadaqada inaad bixisid oo qof walaalkaa aada caawisid, intaas iyo ka badanaa ku helaysaa. walaalayaal ibni aadanka sidiisa wuxuu u samaysan yahay bakhiilnimo. qofka inuu wax bixiyo waxay ku qaadanaysaa inuu soo dagaalamo, naftiisa la soo dagaalamo. laakiin naftaada haddaa la dagaalantid ilaahay wuu ku badbaadina. waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana. laakiin naftaada haddaa shaytaanka u dhiibtid waxba kuma ogolaanaya inaad sadaqaysatid. mar allaale markaa rabtid inaad wax bixisido wuxuu ku leeyahay telefoonkii biilkiisa lagaa rabaa, guriga ijaarkiisa lagaa rabaa, gaariga inshuranskiisa lagaa rabaa, biilkiyaa lagaa rabaa, hebelaa ku baahan, qaraabadaada inaad siisidaa kaaga owleysan, habeerta inaad siisidaa kaaga muhiimsan, ilaa meeshan ku sadaqaynaysa, eedada inaad siisidaa kaaga fiican. 100 albaaboo kugu furaa uu ku dhahaayo sadaqada hadda la jooga ha bixinin. markuu kaa joojiye tanne laa hooyadaadan ku sadaqaysanaynin, walaa aabbahaadan ku sadaqaysanaynin, walaa xaaskaadan ku sadaqaysanaynin, walaa qaraabo kalea ku sadaqaysanaynin. wuu kaa diiday, tan kalena wuu ku hilmaamsiina. 100 mushkiluu kugu furaa markaa aragti inaad sadaqaysatid. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay sadaqada inaad ku dadaashid. hal waxaan kula dardaarma, waxaa samaysataa wax adiga ilaahay keliya idinka dhexeeyo. maanta bax sadaqayso. qof asiguu ku ogeynuu kuu jiidin ilaahay dartiisa u sadaqayso. haddii dhibaata kugu dhacdo waxaa dhahaysaa ilaahayow maalin hebel arrintaas dartaada haddaan u sameeyey ilaahu iga badbaadi dhibaatadan ku jiro. xabiibkeena noo sheegay sala allahu calayhi wasalam 3 nin oo meesha galeen, dhibka galeen, mid walba wuxuu ku ducoystay camal asiga iyo ilaahay keliya ka dhexeeyo. adiga maanta waxaa qabataa sadaqo, baxso. maanta maxaad awoodaa? intaad awoodda haska bakhiilin. waa waxaa aakhare akawnkiisa aa geshanaysid. maanta maxaad awoodaa? maanta waxaan awooda $1 inaan qaado. wallaahi ha ka bakhiilin. $1,000 qaad, meel uu qof kaaga jeedin geli, meel aad kaamera iyo qof aad iska tuseynin bixi. markaad bixisid kadib waxaad tidhaha allaahuma laka alxamd, ee ilaahu iga aqbalo, sir iga dhig. dhibaata markay kugu dhacdo, walwal markuu ku qabto, gacmo korto, ilaahayow maalin hebel haddaan waxaas kuu sameeyey iga badbaadi. 3 nin waa xasuusta rasuul sal ly slam wuxuu 3 ninaa jirtay. waxay galeen roobaad ay goday galeen, kahfay galeen. roobkii marka dhagax weynaa soo dhacay, albaabkii ku xiray, meeshii ka baxayeen qab wuu xiray. roobkii dhamaaday inay baxaanay rabaan, kaalib adiga ka saar. waa riixeen malahan. caqligii lahay way fahmeen, waxay leeyihiin niman yahow meeshan wax idinka badbaadinayo keliya waxaa waaye camal aad ilaahay ugu dhawaatay maanta sheeg.
haddaadan camal haysan dhibaatadaas oo kale kugu dhacda maxaa sameynaya walaalo meesha weligaa ku ureysay soo maha ninka koobaad camaluu sheegtay wuxuu yidhi ilaahayo hooyey aabbaan lahaa caanaha markaan keeno hooyadii aabahiyaan siinaya habeenada ka mid ah ilmaheedu oynaayo maanan siinin hooyadii aabahii jiifaan arkay hooyadii aabahina maanan kicinin caanihiina ilmahayga ma siinin oo yidhi ilaa ay ka soo kaceen subax markay soo kacana hooyadii aabahiisii kadib aan carruurtiisii ilaahayow haddaan u sameeyey adiga dartaa iga badbaaday dhagax tirab waa dhaqaaqay allahu akbar wax walba adduunyadan joogo biyadillaahi subxaanahu watacaala yafcalu biha maa yashaa siduu rabo ilaahay ku samaynaa kii labaad wuxuu yidhi ilaahayow gabara ilma adeernahaa jirto aada u qurxanaa rabi inaan waxun ku sameeyo way diiday way iga tagtay dhibaataa ku dhacday faqray noqotay way iisoo noqotay markay iisoo noqotay kadib waxaan ku dhahay xaaji maqal haddaa rabtid nakeen meeshii gabadha way ii baahan tahay faqiir waay waayahay tiri xoolihii markaan siiyey markaan u dhawaaday uu nin naag meeluu ka istaagay aan ka istaagay markaasi waxay u tiri ittaqi illaaha walaa tafud alkhaatama ilaa bixaqi ilaahay ka baqay tiri haddaa rabtid ii guurso laakiin waxun ha igu sameynin ittaqi illah markay tiri waa ka soo kacay ilaahayow haddaan dartaada aga soo kacay iga badbaadi dhagaxi waa dhaqaaqay laakiin weli kama bixi karaan kii saddexaad muxuu yidhi ilaahayow qof waxaa jira ii shaqaynayay lacagtiisa markaan siiyo wuu ka xanaag wuu ka tegay lacagtiisaan ugu shaqeeyey markuu siniin kadib soo noqday wuxuu leeyahay xoole hadda ka hor kuu shaqeeyay lacagteeda kaaga tagay si markaas waxaan wuxuu xoolahaas meesha yaal mujeeda geelahaas iyo looyaashaas iyo eryaashaas meesha yaalo adiga iskala ka qaado markaas warmiya u jeesteynaysaa adiga kuma jeesteyna bax qaado wuxuu ninkii wuu qaata hal xaban igaga muusan tegin ilaahu haddaan dartaada u sameeyay naga badbaada dhagaxi wuu dhaqaaqay adiga maxaa ilaahay weydiisanaysaa haddii ilaahay dhib kugu dhaco maxaa weydiisanaysaa camal samayso sadaqayso waxyaabaha ilaahay loogu dhawaadana waxaa ugu fiican sadaqada rasuul ilaahay subxaana watacaala markuu ka sheekeynaya dadka oo markii dhinta dhinta ka sheekeynaya wuxuu waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an ya'tiya axadakum almawt فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب محاسميني أدون كيدي كذا لو ليلة فأصدق وأكن من الصالحين إذن أعماش إله لو لو أقول سومي جد صدقة واي صدقة يسوع صدقة بتصو صدقة السر بتصو خير الله كسي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه سنين تصوصعتي عمل كلو آدو قيمة بدن oo ilaahay kugu jeclaanaya laguguna dembi dhaafaya jannana aad ku gelaysay ilaa isniinta soo socota laga gaara waxaa la rabaa kan inaad dhageysatid kuna camal fashid walaalaha kalena usii gudbisid khayr allah kusii jazaakum allahu khayra baaraka allah fiikum ilaa darseeni jeclahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu